السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walalaha qiimiga badan ku soo dhawaada kow Somali Media waa 15ka bisha Shawaal sanadka 1447 taariikhda hijriyada waa habeenimo Jimco Sabti ay soo galayso miilaadiyaduna ay ku beegan tahay 3 bisha Afraad sanadka 2026 qodobada ugu waaweyn barnaamijkeena habeenimo waxa kamida Mareykanka ayaa baadi goob weyn ugu jiro laba kamida shaqaalihii diyaaradiisa F-15 oo lagu soo riday gudaha dalka Iran waxaan ku hayaa warbixintii ugu dambeysay diyaaradii maanta laga soo riday Mareykanka ee gudaha dalka Iran lagu soo riday oo Iraniyiintu ay soo rideen iyo sidoo kale Mareykanka oo baadi goob weyn ugu jiro sidii ay u heli lahaayeen ama ay u badbaadin lahaayeen laba kamida bayloodiyadii diyaaradda saarnaa oo nolol iyo geeri aan gacanta lagu haynin dhanka kale duqa magaalada Kohligweg ee halka diyaaradda ay ku soo dhacday gudaha dalka Iran ayaa isna ugu baaqay dadka Iraniyiinta inay gacanta ku dhigaan bayloodiyadaasi hadii nolosha ay ku qabtaan hadii kalena meydkooda ay booliiska la wadaagaan qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonteena waxaa kamid ah Al Jazeera waxay in yar ka hor baahisay telefishinka dalka Iran oo dadweynaha reer Iran u ballan qaadaya cidii nolosha ku keento labada nin ee Mareykanka ee gudaha dalka Iran laga dhaxbaadi goobaya in la siinayo abaalgud aad iyo aad qaali u ah warbixintii u dambeysay Jazeera ay ka diyaarisay xaaladda ka taagan gudaha dalka Iran iyo Mareykanka oo ciidamo badan dhanka Iran u wada si loo badbaadiyo bayloodiyadaasi ayaynu isla eegi doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonto iyana waxaa kamid ah Iran waxa ay cambaaraysay weerar ay sheegtay in Israel ay ku qaaday Kuwait Iran waxay bataagantahay weerarada lagu qaadayay maanta oo dhan ilaa xalay Kuwait waxa qaaday Israel yana faahfaahin baan idinkaga hayaa qodobka ugu dambeeyana Senator Chris Coons oo kamid ah senatarada dalka Mareykanka waxa uu bixiyay waraysi la yaab leh kaas oo tilmaamaya in Israel ay tahay mid hortaagan dagaalka Iran inuu joogsado oo Mareykan iyo Iran ay wada hadlaan waxa uu leeyahay mar walba oo rajadii wada hadalku soo dhawaado waxa baabi'inaya oo dib u celinaya xaaladda waa Israel buleeya Mareykanka ay rabtaa dagaalka inay ku hayso waraysigaas oo maqalay muuqaala iyo xaaladii ugu dambeeyay ee ka taagan bariga dhexe ayaanu barnaamijkeedii ku haynaa ma rabtaa inaad waalidkaaga u samayso abaal aan la ilaawi karin shirkadda Najmuddin Travel Agency waxay ku diyaarisay adeeg gaar ah oo aad kaga xajin karto waalidkaaga aabba iyo hooyo ha ahaadeen kuwa nool ama kuwa dhintay intaba waqtigii xajka waa la joogaa isdiiwaangelintu way furan tahay balse waxa ka haray maalmo kooban haddii aad jeceshahay in waalidkaaga u samayso samafal uu alla ka ajirsiiyo Najmuddin Travel Agency waxay ku haysaa adeeg la isku halayn karo oo laga xajinayo dadka dhintay iyo kuwa da'da ah si ajirku u gaaro waxa kuugu diyaara hagayaal khibrad dheer u leh arrimaha xajka kuwaas oo kuu fududeynaya dhammaan safarka cibaadada labayk allahumma labayk la shariika laka labayk حسيقن فرصدنا قالقة استوان قلي حتى أو كفايديسو أديك Najmuddin Travel Agency وحي فافاهن ديرادة كلا حديد لنبرد شاشة كاغا موضا سودو هذا مركل مقعي هو مصطفى علي هالكن هو كو Somali Media Mareykan كمان توحا قارتي الرباحة آد ودران ودقالك كسعودة إيران ويكو قادين Mareykan كإسرائيل كاغا إمادي ديارة F-15 وكاميدا ديارة وقالسان maanta marka hore waxa soo baxay warar sheegay F-35 ama F-35 inay tahay laakiin hadda waxa la xaqiijiyay diyaaraddu inay tahay F-15 oo markaa ku soo dhacday gobol kamid ah gobolada dalka Iran ayna soo rideen sida la sheegay ciidamada Iraniyiinta diyaaradda waxa ilaa hadda la leeyahay laba kamid ah bayloodiyada diyaaraddaas oo markaa la sheegay inay laba yihiin lamana oga nolol iyo geeri inay dhinteen in bayloodiyadaasi ay nool yihiin laakiin waxa jira shaki badan oo tilmaamaya bayloodiyada diyaaradda inay nool yihiin Iraniyiintu waxay rabaan inay gacanta ku dhigaan iyagoo nool oo ay qabtaan Mareykanka waxay kiciyaan diyaarado ay kamid tahay helikobtaradooda iyo kuwa kale hawada Iran ayaa caawa la isku haystaa oo dagaal ba'an ayaa halka ka socdo gobolka ay diyaaradda ku soo dhacday oo loo yaqaan Kohligweg ayaa waxa ay Mareykanku u dareen diyaarado iyo ciidamadooda cirka aad u badan waxa lagu jiraa baadi goob xoogan oo ku aadan
sidii loo badbaadin lahaa haddii ay nool yihiin labadaa nin ee ciidamada Mareykanka ka mid ah ee diyaaradda saarnaa. dhanka kale Iran waxa ay ku dadaalaysaa in raggaasi ku soo xadgudbay hawadooda ama ay nolosha ku qabato ama meydkooda ay soo bandhigto. haddaba xaaladdu waa cakiran tahay, waxaase laga baqayaa in dagaalku uu sii adkaado dhanka hawada iyo dhulkaba uu isku bedelo oo xiisadu ay sii laba kaclayso. waayo Iran waxay ugaarsi ugu jirta caawa kuwa kale ee raadinaya labadan nin nolol iyo geeri ku raadinaya inay iyaga laftirkooda diyaaradaha soo rido. Mareykanka wuxuu isku dayayaa meel walba oo laga soo weerari karo ciidamada Mareykanka ee hawada ku jira raadinaya askartan maqan baylodyadan inay badbaadiyaan. macnaha caawa xaalad dagaal oo nooc kale ayaa socdo. gobolkan ay diyaaradda ku soo dhacday ninka duqa magaalada ka ah waxa uu ku boorinayaa dadku inay caawa dadaalaan oo ay raadiyaan nimankaasi Mareykanka ah ajnabiga dalkooda soo galay. dadka reer Iran buu yiri geesiyaasha ah baxa oo ragga soo qabta keena. macnaha Mareykankii dadkiisiiba hadda la raadinaya. waxay isku galeen bad kale diyaaradda F-15 dhacday dhowr milyan joogto waxaaba ka daranba laba qof aan maqan oo aan la xaqiijinin. diyaaraddu waxay leedahay wararka dhinaca ciidamada cirka Mareykanka ay helayaan waxay aaminsan yihiin baaloodyadani iyagoo nool inay diyaaradda ka degeen. diyaaraddu markay dhacday barshuudkoodii inay ku boodeen oo ay nool yihiin. hadday nool yihiin intay ku noolaanayaan marka ilaan Iran ay ku dhaxdhaceen. Iran dagaal ay kula jiraan. shacabka Iiraaniyiinta rag soo qabtaa la leeyahay. xaaladdu waa adag tahay. way qodobkaas meesheen uga gudbeynaa wixii ku soo kordha barnaamijyada dambe ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa. waxaan u gudbeynaa warbixin Al Jazeera ay ka diyaarisay xaaladii ugu dambeysay ee diyaaradii soo dhacday dhinaca iyo Mareykanka F-15ka. sida Al Jazeera ku waramayso TV-ga qaranka Iran gabadha wariyaha ahayd baaba soo istaagtay. waxay leedahay dadka reer Iiraanow ogeysiis waxaa la idin ogeysiinayaa diyaaradii F-15 ee Mareykanka ka soo dhacday labadii pilot ama labadii nin ee saarneed shaqaalihii crewga saarnaa haddii aad soo qabataan oo nolosha ku keentaan waxa aad helaysaan abaalmarin aad iyo aad u qiimo badan. macnaha abaalmarin lacageed abaalgud ayaa la siinayaa valuable qiimo leh ayaa la siinayaa. macnaha Mareykanka tan waxay ku tahay xaalad kale oo yaab leh. telefishinka Iran wuxuu leeyahay nimanka raadiya shacabkiya loo diray. shacabkan dhaqaale helayaan hadday keenaan. nimanka Iiraaniyiinta niman jeesta maahan. askartan Mareykanka marka ay labada pilot hadday nool yihiin caawa nolol dhib badan ay ku noolaanayaan. ilaan dhul aysan aqoon meel aysan garanay ay ku soo dhacdhaceen. dhul wada buuro ah miyiga Iran tuulo ayay ku soo dhaceen. tuuladina dadkii loo diro nimankii soo qabtaan leh. marka waxa la marka waliba dawladda Iran waxay leedahay nimankii la dilin ahna loo keeno in la qabto ayaa la rabaa nolosha lagu qabto. bal waxaad ila daawataa warbixintii ugu dambeysay Al Jazeera ay ka samaysay xaaladan. We begin with breaking news out of Iran, where the state media is reporting a US fighter jet has been downed and that the US military is trying to conduct a search and rescue operation. Iran's state television says there's a reward for anyone who can find the pilot. توجه بفرمایید بینندگان عزیز. Attention, dear viewers, to the dear and honourable people of Kokiluya and Boyar Ahmad province. If an enemy pilot or pilots are captured and handed over, detained and alive to law enforcement and military forces, you will receive a bounty and a valuable reward. We've reached out to US Central Command for confirmation and comment, but we haven't received a reply. Let's bring in Ali Hashem in Tehran. Ali, what is State TV saying about this potential downing of a US jet? Well, the State TV has said that Iran has downed an American fighter jet. They say it's F-35. Now, we cannot confirm that from our side. And that two US pilots are missing inside Iranian territories. This took place
towards the west of the country in the areas of Luristan, between the areas of Luristan. And now taasi waxay ahayd warbixintii ay ka diyaarisay Al Jazeera telefishinka Iran oo amraya dadka in la soo qabto bayloodiyadaas. macnaha waxay leeyihiin dhaqaalahan ka faa'iideyso oo fursada qaata. dhinaca kale telefishinka Sky News-na waxa uu warbixin ka diyaariyay diyaaradda dhacday iyo sida xaaladda hadda ay tahay iyo halka ay wax marayaan iyo wararkii ugu dambeeyay ee laga helay bal yaraan isla daawan. To breaking news, a US official has confirmed to the Reuters news agency that one of its fighter jets was shot down over Iran and a search is currently underway for the crew. Well, I'm joined now by our US correspondent, Mark Stone. Mark, what more do we know on this? Well, we believe that this is a two-seater F-15 fighter jet that went down over Iran at some point over the last 12 hours. It's not clear at the moment whether it suffered mechanical failure or whether it was indeed shot down. We expect to get some more detail from the US military over the course of the next few hours. Two crew on board, their whereabouts at the moment not known. There has been some unverified footage that we have seen over the course of this morning, which appears to show two things. First of all, a transport plane, a US military transport plane, in the skies over Iran, which is extremely unusual. taasi waxay warbixintii yana Sky News ay ka diyaarisay qayb kamida waxa Sky News leedahay qaar kamida madaxda dalka Mareykanka ayaa u xaqiijiyay warbaahinta Reuters in ay diyaaradooda F-15 ay ku soo dhacday gudaha dalka Iran isla markaana ay ka maqan ay saaranayeen laba kamida shaqaalihii diyaaradda bayloodiyadii marka lama ogo nolol iyo geeri sida inta day aan sheegnay marka xaalad way adag tahay runtii Mareykanka caawa Trump kooxdiisa xaaladan xaalad adag ay ku tahay lamana garanayo mustaqbalka labada crew ama shaqaalaha diyaaradda bayloodiyada waxa ay xaalkooda noqon doonto inay halkaasi ku dhinteen oo ay burburka dhinaca kale Sky News waxay leedahay lama hubo in diyaaradda ay mechanical fault ay tahay cilad farsamo inay tahay in la soo riday lama kala saari karo laakiin Iiraaniyiintu waxay iyagu Mareykanka intaysan hadli ka hor xaqiijiyeen in diyaaradda F-15 ay soo rideen marka xaaladdu sidaas ay u cakiran tahay Trump wuxuu Mareykanka geliyay dagaal uusan usu diyaarin oo usu qaban qaabinin meel uu ka baxana uu garan la yahay waayahay saaxiibada qiimiga loo waxaynu toos u galeynaa qodobka la xiriiro Iran waxay cambaaraynaysaa Kuwait ee aan idhaahdo Israel waxayna ku cambaaraynaysaa weerarada ay ku qaadayso Kuwait sheekadan eeg waxay leedahay Iran waxaan cambaaraynaynaa weerarada Israel ay ku qaadayso Kuwait gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha dalka Kuwait gaar ahaan xarunta sifaynta shidaalka dalka Kuwait Iran waxay iska bariyeeshay inay iyada weerartay sida Al Jazeera ay qorayso waxayna ku eedeynaysaa in ay weerartay Israel marka Israel hore waxa loogu eedeeyay weerarada Iiraaniyiinta khaliijka ay ku wadaan ama Iran ay ku duqeynayso khaliijka Israel way dhex gashanaysaa baa la leeyahay haddii dalalka qaar ay duqeyn weyso Iran ay ka dayso duqeynta Israel iyada duqeynaysa hadhow waxay ku eedeynaysaa in Iran ay duqeyso waxay rabtaa degdeg inay dalalka khaliijka kulaadaan oo ay dagaalka galaan macnaha farsamo cajiib ay isticmaalaysaa horey Sacuudiga dhowr jeer u duqeysay kadibna waxay ku eedeysay inay Iran tahay Iranna waa iska beenisay oo ay diiday Turkiga la duqeeyay Iran waxay tiri anaga manin Azerbaijan baa la duqeeyay Iran waxay leedahay anaga manin marka dalalkaas hadda Turkiga iyo Azerbaijan iyo duqeyntii waa laga daayay laana horey ka ogaanayeen meesha duqeynta ay ka timid laakiin Imaaraadka Iran ma diidan inay duqeyso way qirataa ama Sacuudiga Iran dhowr jeer bay diiday sidoo kale hadda waxay diidan tahay Kuwait haddaba marka tani waxay ku tusaysaa dagaalkan inuu yahay dagaal wajiyo badan oo siyaabo kala duwan la iskaga faa'iideysanayo fursad kasta oo soo baxdo waa la qaadanayaa fursadaha lama dayacayo waayo mar hadday isdagaalaan dalalka khaliijka iyo Iran Israel waxay u tahay fursad ay ku nasato oo ay dalalkan hadhow dagaalku wuxuu isku bedeli karaa sunni iyo shiico gadaal bay ka fariisan kartaa dalalka sunniyiinta ay caawin kartaa si shiicada loo jibiyo hadhowna shiicada la soo caawinaya sunniyiinta lagu jabinaya laakiin waxa moodaa inuu hadda jiro qaangaar iyo faham siyaasadeed oo meesha jihada wax u socdaan la fahamsan dalalka khaliij ilaa hadda way diidan yihiin
inay dagaalka la saftaan Maraykan Israa'iil oo Iiraan duqayaan hal dal oo sameeyay ma jiro ilaa hadda xitaa Imaaraadka waayahay saaxiibada qiimiga loo qodobka markaynu meesha ugu gudubno waxaynu galaynaa qodobka ugu dambeeya barnaamijkeena oo aanu ku soo xireyno qodobkan waa qodob yaab leh Senator Chris Coons oo ka mid ah senatarada dalka Maraykanka waxa uu leeyahay dagaalka Maraykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iiraan oo hadda 6 isbuuc galay bil iyo bar ayuu ku socdaa waxa diidan buu leeyahay inuu joogsado Israa'iil Iiraan waa diyaar Maraykan waa diyaar oo kula wadaagi doona iyadoo maqal iyo muuqaal wuxuu leeyahay mar kasta wada hadallada rajab yeeshaan oo dagaalka laga gudbi rabo waxa soo celinaya buu leeyahay Israa'iil waxay beegsanaysaa buu leeyahay cidda Iiraan wada hadallada u matali lahayd oo la heshin lahaa ay dilaysaa waxay isku dayaysaa inay disho ama xitaa Maraykanka waxa la qarinayaa saraakiisha wada hadallada uga qayb galay waa Israa'iil way beegsanaysaa macnaha heerkaas ay ka maraysaa maamulka Netanyahu tusaale wuxuu soo qaadanayaa senator Chris wuxuu leeyahay Ali Larjani hogaamiyihii ama madaxii qaranka ama amniga qaranka dalka Iiraan Israa'iil way dishuu leeyahay mar ay ka warheshay in wada hadallada Iiraan iyo Maraykanka ay soo dhawaadeen oo heshiis la soo jiro isku soo dhawaasho Ali Larjani uu ahaa nin diyaar u ahaa xaaladda qaab diblomaasiyad in loo dhameeyo ilaan waa nin aqoon-yahana arrimaha caalamiga yaqaano bartay falsafada reer galbeedka diyaar buu ahaa si nabadaysan in xiisada lagu dajiyo waa markii Ali Khamenei la dilay muddo kadib waxay dileen Ali Larjani oo la sheegay in wada hadal hoose u socday Maraykanka isaga sidoo senatorkan sheegayo bal ila dhageyso. That's a great question to which there isn't a great answer. President Trump, several days into the war, made it clear that he had thought that Larijani, one of the senior elected leaders of the Iranian government, was someone with whom he or his administration might have negotiated, but the Israelis assassinated him. The Israelis have attacked over and over the senior leadership of the intelligence services, of the IRGC, of the Ayatollah and his close advisors, and that has made it difficult for us to assess exactly who's in charge. But we do know this. The Iranian Revolutionary Guard, the IRGC, has a pretty firm grip on the country and has been trained in how to continue aggressive operations even when there isn't a clear central command. So I don't, in the near term, see an easy path towards there being a real change in the government or the regime in Iran. kaas waxa senator Chris waxa uu leeyahay waxa jiray buu yiri fursad Ali Larjani wuxuu ahaa nin Trump maamulkiisa ay aaminsanayeen inuu yahay inay la wada hadli karaan oo ay xiisad qaab diblomaasiyad ku dhameyn karaan wada hadal lagu dhameyn karo Israa'iil markay ogaatay horay ka dishay madaxda sare ee Iiraaniyiinta ay beegsanaysaa waayo ma rabta in arinta xal nabadeed ay ku dhamaato macnaha Iiraan baa wixii Israa'iil baa wixii difficult ka dhigaysa adkeynayso waxa uu leeyahay lama garan karo cidda hadda maamusho Iiraan waayo cid lala hadla lama yaqaanaba laakiin waxaan ognahay buu yiri in ilaalada kacaanka dalka Iiraan loo tababarayba dawladda Iiraan mar u diyaarisay waxa wax la diyaariyay wax cusub maahan ilaalada kacaanka Iiraan waxa loo diyaariyay xitaa inay dagaalka sii wadi karaan oo ay dagaalami karaan iyagoonan haysanin meel dhexe oo amarka uga imaado macnaha hogaamiye la'aan ay dagaalami karaan waa loo train garay waa loo tababaray haddii la'aan dalka hogaamiyaashiisa la dilo oo hogaamiye la'aan u noqdo madaxweyne la'aan noqdo hogaamiye uusan jirin waxa loo tababaray inay dagaalka sii wadi karaan macnaheedu wuxuu leeyahay marka senatorkan saad maqlayseen is no easy path wada fudud oo dagaalkan looga bixi karo malaha waxa la dhex fadhiyaa meesha Soomaaliya dhihi jireen Bahar Sitiin xaaladu ma sahlano walaalaha saaxiibada qiimiga laaw barnaamijkeeni habeenimo oo caawa aad kala socoteen Kow Somali Media waa inaga inta aynu kulmeyno barnaamijka mid ka xigo walaalkii Mustafa Ali oo idin leeyahay nabadgelyada Ilaahay dushiina ahaato assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socdo receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel
internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu uu yahay 55 megabyte per second iyo 400 daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu uu yahay 110 megabyte per second iyo 700 daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. si aad u hesho internet xawaare sare leh oo aan kala go' lahayn, dooro isgaarsiinta jiilka cusub ee Somnet Telecom oo hel internetka ugu xawaaraha sarreeya dunida iyo guud ahaan geyga Soomaalida ee 5G internet. si fudud u xulo xirmada internet ee ku habboon baahiyahaaga adigoo garaacaya xidig 544 gees oo ku raaxayso internet xawaare sare leh. Somnet Telecom isgaarsiinta jiilka cusub.